aad assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhammaan tiimku waa idin salaamay salaam kadib caawa waxaa qaadan doonaa alfabeetka luuqadda talyaaniga saa wada ogsoonnahay luuqad walba waxa ay leedahay alfabet caawa halkan waxaa inooga muuqdo guud ahaan xarfaha ama alfabeetka luuqadda talyaaniga kuwaas oo ka kooban ku dhawaad 21 xarfood marka la kala qaadana ay noqonayaan 16 xarfood oo caadi ah iyo 5 xarfood oo loo yaqaano vowels mararka qaar waxaa la raaciyaa 5 xarfood kale oo loo yaqaano foreign letters ama luuqadda talyaaniga la lettere straniere oo ay u yaqaanaan xarfaha shisheeyaha mostly ma isticmaalaanayo talyaaniga xarfahan halkan idinkaga muuqdo mostly waxaa loo aqriyaa hadba siday u qoran yihiin marka la joogo luuqadda talyaaniga waxaa jiro xarfo qaar oo u dhow marka la aqrinayo sida luuqadda soomaaliga oo kale iyo kuwo kale u dhow luuqadda ingiliishka marka la aqrinayo oo kale hal iyo labo waaye waxay u dhow yihiin ingiliishka iyo soomaaliga mostly qaabka loo aqriyo waa kuwana halkan ay ka muuqdaan waan isla arki doonaa ciwaankeena caawa waa kana waa l'alfabeto italiano alfabeetka talyaaniga ama luuqadda talyaaniga marka xarafka ugu horeeyo waxaan ku bilaabeynaa a B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z xarafkan marka la joogo oo v-da ah marna waxaa loo aqriyaa vu marna waxaa loo aqriyaa v sidoo kaleeto xarafkan oo h-da ah talyaaniga marka la joogo xarafkan mostly muuduu geliyaa sida luuqadda ingiliishka oo kaleeto xarafka r muudka loo gelsho kale kan mostly muudaa la geliyaa aka qaabkaas aan loo aqriyaa mar kale waa ku celinaynaa a b g d e f g h i l m n o p q r s t u v z aad iyo aad waxyaabaha oo mudan in la iska ilaaliyo waxaa qayb ka xarafkan b-dan iyo b-dan qaabka loogu dhawaaqayo p iyo b macnaha dhawaqa lagu kala fahmaya labada b midka markaas aqrinay waxaa isla aragnay xarfaha 21ka waxaa haddana bixinaynaa 5 xarfood ee vowelska ah sida afka soomaaliga oo kale a e i o u noocaas waaye xarafka koowaad waa kana a kan labaad waa kana e kan saddexaad e kan afraad o kan shanaad u waa soomaaliga camal waaye a e i o u waa 5 xarfood oo loo yaqaano vowelska waxaa arkaynaa kuwa ay yiraahdaan la lettere straniere ama foreign letterska oo 5 xaba ah ayagana waa kuwana waa 5tan J K W X Y marka ayaga saas u maqnaa waxay u arnayaan qaabkan ilunga kappa W ama W X Y xarafkan sida v-dan oo kale waa w waa laba v oo la isku geeyo kale marka waxay dhahaan marna w marna waxay dhahaan w aad iyo aad marka waa ku celinaynaa ilunga kappa w x y aad iyo aad waxaa rajeynayaa inaad fahanteen waxaa idin leeyahay alfabeetka luuqadda talyaaniga waa kaasa intaas ka kooban yahay waa 21 xaraf marka la kala qaado 16 caadi ah 5 vowels iyo 5 oo xarfaha foreign-ka ah intaas guud ahaan isku noqonayaan oo ah 26
laakiin asaga wuxuu leeyahay 21kaas. marka waxaan rajeynayaa inaad fahanteen. waxaa idinkula dardaarmaya inaad soo qaadataan buug iyo qalin oo aad qorataan misena aad ku ceshataan muuqaalka kadib carabkiina iyo maskaxdiina bara ku celiya korka xifdiga. waxaan rajeynayaa inaad ku guuleysan doontaan insha Allah. waxaan idin leeyahay habeen qurux badan. Ciao ciao.